رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. bishatani waa bil aan rabno laba wax inaan helo. kow in ilaahay dembigaaga dhaafo, hadda maaha inaynu iyada dembi kororsano. dadka qaar baa bishatan musalsalaad iyo balaayo bishii uu dembiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba. maaha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo, bilaad marna hurudo marna ma aha. waa bil qofka muslimka ay ijtihaadu ku jiro. waa qofka muslimka waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaarsiiyo. muxuu rabaa in ilaahay dembiga ka maydho. wuxuu rabaa ajar inta ugu badan la inuu shaqaysto. wuxuu rabaa inuu ku biiro min cutaqaa'ih, kuwa ilaahay naarta ka xoreynaya. habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bishatan oo dhan. wadaaka fi kulli leyla buu nebigu yidhi. habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya. inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyey ee inaad dembi kororsato maaha. walidaalika baa caaisha markay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow haddiiba ilaahay haleeshiyo aan ku beegmo habeenkaasi leylatulqadriga maxaan idhaahdaa bay ku tidhi. nebigu wuxuu yidhi waxaad tidhaha allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa faafu can. ilaahu dembigayga rogni, ilaahu cafi. waxaad ku ducaysata habeenkaasi ha noqoto buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ilaahu cafi. bishatan cibaadaadka la sameeyo culammadu waxay yidhaahdaan markaa cibaadooyinkeedu uma dhigmaan xataa cibaadooyinka bilaha kale la samaynayo. walidaalika baa maalan nebigu wuxuu leeyahy cimradan la cimraysto ramadaan gudaheeda tacdilu xija, wa fii bacdi riwaayaat xijatun maci. ramadaan inaad soo cimraysataa xaj bay u dhigantaa xagga ajarka marka la eego nebigu tilmaamaya, ama xagga dembi dhaafka ama weynida xaj bay u dhigantaa baa leeyahy. riwaayaadka qaarkood baa weliba waxa leeyahy xaj aad nebi maxamed la xajtay. xaj oo dhan maaha, xaj aad wadaad yar raacday maaha, xaj aad nebi maxamed la socotay ayay u dhigantaa. haddaba waxaan leenahay ayuha alaxiba, bishatani waa bil uu qofka muslimka ahi training galo. waa course uu qofka muslimkii tadriib ku qaato. tadriibkaasi kow wuxuu salaynayaa inuu uskaga iskaga maydho. gaalnimada iyo dunuubta oo dhammi waa najaasat alqalb. kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun baa ilaahay tilmaamay. qalbiga waxaa daxaleeyey maa kaanuu yagsibuun. uskagoo dhan inuu qofku iskaga maydho waa waxa koowaad. waa marka labaadee naar inuu ku xoroobo. waa marka saddexaadee inuu ajar helo. waa marka saddexaadee waa bil uu taqyiirkaba suurtageliyay qofka muslimka inuu noloshiisa bedelo. waxyaaba bini aadamka ugu adag ee noloshiisa ka mid ah cunooyinka ka mid ah. cunadaadii baa la raray, wakhtigaad wax cuni jirtay iyo wakhtigaad seexan jirtay iyo wixii oo dhan baa la bedelay. idan haddii waxyaabihii faastka ku ahaba la bedeli karo, everything noloshaada ku tacalluqa waad bedeli kartaa. you can change. balwad ha noqoto, caada xun ha noqoto, dembi ha noqoto, wax kasta oo nolosha ku tacalluqa. waxay yidhahdaan culammadu bishatani waa shahrun litagyiir gebigeedba. waa sistamkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto, balaan cusub inaad degto oo ah saad u xoroobi lahayd ee naf iyo shaytaan uga xoroobi lahayd. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu deeq badnaa, laakiin ramadaan lama mid ahayn deeqdiisu bilaha kale. kaana rasuulu llahi ajwad annaas وأجود ما يكون في رمضان. نبي محمد عليه الصلاة والسلام مداق بضبوها وولي وحلا ويديد نبي محمد ما يمورن عليه الصلاة والسلام. ما يبقى قف كبارا قف بني آدم قف ما يكون كورن ولي بدي هداد قف قرصان طهي وحلا غيابا دافر قف باقوت ما دينا ما الله بقف فينا سركتان الله ضاينا بحسيسه قف موغضة مركات هدد كوسا ودا قصدين يا كورن قف موغضة ما أمد مدحوينه هاد مركاتي مدحوينه ده أمد رسول كيد مركاتي خلقي قدام هادو كوسو قصدينيا iyadoo khalqigoo dhan uu ka mudan yaho muuqdo dadoo dhan uu soo qasdinayaan ayaanu haddana maya weligiiba odhanin. haddana hadday ramadaan soo gasho ajwad maa yakuun fii ramadaan wuxuu ugu deeq badnaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markay ramadaan joogto. idan zamanku wuu kala fadli badan yihi. walidaalika ramadaan waa wakhtiga uu nebigu sheegay habeen kastaoo ramadaan ka mida in dad ilaahay naarta ka xoreeyo. habeen walba lilahi cutaqaa min annaar wadalika fi kulli leyla. wakhtigu isku mid maaha oo ramadaan tobankeeda habeena dambe wuu ka sii fadli badan yahay inta kale. tobankeeda habeen isku mid maaha habeenka leylatulqadrigu. maxaa aayaddii qur-aan ay sheegaysa khayrun min alfi shahr. alfi shahr waa imisa? waa 380 sannadood iyo bilo. 380 sannadood iyo bilo
salaadaad tukanaysay ayaa waxaa ka khayr badan salaadaad habeenkaa tukato. 83 sannadood duca aad ducaysanaysay waxaa ka fadli badan ducadaad habeenka asiifto. 83 sannadood sadaqa aad bixinaysay waxaa ka fadli badan sadaqada aad habeenkana haleesho. idan habeenkani khayrun min 1000 shahr baa la yidhi. 1000 bilood buu ka fadli badan yahay. oo haddii habeenkan aad haleeli weydo, nabi maxamed wuxuu leeyay man qaama laylatan qadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi. habeenka laylatulqadriga qofka haleela ee istaaga ilaahay tukada isagoo iimaanan waxtisaaban samaynaya, ilaahay dartii unuga dal leh iyo maalinta aakhiro u xisaabsanayo aan dan kale u samaynaynin, dembigiisii hore waa la dhaafaa. man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira maa taqadama min dembi. man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira. saddexda xadiis baa soo arooray. ninka sooma bisha ramadaan iimaanan waxtisaaban dembigiisa la dhaafaya. maalmaha kaloo la soomo marka dee waa ka fadli badantay ramadaan soonkeeda. ninka afuraana dee waa ka dembi badan yahay. ninka ramadaan salaadeeda tukada, salaatuleyl tukada ee habeenkii ooga dembigiisa waa la dhaafaya. habeenada kaloo dhan aad ogto waa kasoo fadli badan yahay. ninka habeenka laylatulqadriga gaar ahaan isaga sii haleela waa ka fadli badan yahay. xataa habeenku isku fadli ma aha. habeenku qaybtan hore aynu tukanno waxaa ka fadli badan qaybta dambe. qofka qaybta dambe tukada wuu ka sii fadli badan yahay. ثuluثu leyl اlأkhيr وبالأsxaari hum ystakfiruun qaybtay ku soo aroortay. kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun وبالأsxaari hum ystakfiruun. wاlmustakfiriina bilasxaar ilaahay ku tilmaamayo waa ka fadli badantay. waayo waa ka nebigu le calayhi الsalaaةu wasalaam ثuluثu leyl اlأkhيir baa rabbi yidhaahdaa man yadcuunii faastajiibu lahu. waryaa i baryaya waan ducada ka aqbalaa. man yas'alanii faucطiih weydiisanaya oo aan siiya. man yastakfirunii faakfiru lah. yaa dembi dhaaf doonayaanu dembi dhaafa. wakhtiyadu ma sinna. maalinta jimce waa ka sii fadli badantay wakhtiga kale. jimco ramadaanna de isaga hadalkiisa badah. nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam fiihi saacatu laa yuwaafiquhaa cabdu muslimu qaa'imun yusalii yas'alu اllaha tacaala shayئa ilaa acطaahu iyaah wa ashaara biyadii yuqaliluha. nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam saacad baa ku jirta aanu waafiqin qof muslimi isagoo taaganoo tukanaya oo ilaahay wax weydiista ilaa iyo ilaahay waa siinaya. oo waa saacadee culammadu laba xadiis ay soo arooriyaan, laba meeloodba waa ku tilmaamaan. jumcada markuu mimbarku imaamku saaran yahay ilaa iyo intuu salaada ka baxayo. waxaa kaloo la tilmaamaa wakhtigan aynu hadda joogno jumcada casarka dabadii ilaa iyo ay ka dhacayso saacad ku jirta. waana wakhtiyada dikriga ugu fiican qofku inuu wardiyo. bacda salaati subx haddaad fadhiisato oo wardidid ilaa aad ciddu kaaga soo baxdo oo aad laba ragcadood tukatid, wuxuu nebigu ku tilmaamaya inay tahay maxay? xajatun taama buu nebigu ku celiyey. waa xaj dhammaystiran baa la yidhi. adoo hadda masaajidka iska fadhiyaad yeelatay xaj. bacda alcasarna isna waa wakhtiga fadliga badan leh. haddaad weliba casar jimce hadduu noqdo saacatulijaabahay culammadu sheegayeen baa ku jira. walidaalika waxaynu leenahay asminada faadilka ah ramadaan oo dhan baa ku jirta in laga faa'iidaysto. jimcayaasha ramadaan baa ku jira in laga faa'iidaysto. bacda salaati subax baa ku jirta in laga faa'iidaysto. ثuluثu leyl اlأkhيir baa ku jira in laga faa'iidaysto. qiyaamu leyl baa ku jira in laga faa'iidaysto. leylaة اlqadri baa ku jirta in laga faa'iidaysto. cashر اlawaakhir baa ku jira in laga faa'iidaysto. waxaasoo dhanna waxaa lagu wada tilmaamaya ama xaj taama ama cimro u dhiganta xajkii nebi maxamed mid lala xajay u dhiganta ama dembi la dhaafay ayaa ku soo wada arooray ama baryo la aqbalay.